ereyga koowaad waxa waaye maadaama aan xalal maray azmadii ka dhacday hoteelkaas dhacday oo qofkii ugu dambeeya meesha kasoo baxay aan laga soo saaray 8 saacadood oo azma ah aan ku dhex jiray waxyaabihii aan arkay ama aan qiimeeyey oo aan al-shabaab iyo argagixisada wixii aan ka akriyey iyo wixii inoo muuqday oo dadku ku arkayno maalin kasta inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akrinay cabdidooda ku tacalluqan ka hadli jiraan laakiin xalay waxaan la noolaa ficilkooda iyo toos ah oo mubaashir ah waxaan isii dara ah dad dhalinyaro ah wasran magaalada aniga waa arkay dad dhalinyaro ah oo soomaali ah oo islaam sheeganaya oo usoo galay hotel dad aaminiin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo carruur iyo cid walba leh oo abriye ah oo aan xidin yeel ahayn inay baabi'iyaan oo ay laayaan usoo galay taasaan horta inaan soo saaray waxaa kaleeto duruusta aan soo arkay kamid ah in qofku ajalkiisa u dhimaan hadda soomaal iyo alaashan butoola iyo sahra waxay noo geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorshe xumada iyo go-aan xumada inta meel layska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in layska xoreeyo dawladduna ay arrintaa hoggaamiso shacabkuna garab istaagaan arrintaas iyadaa markaa duruusta xal aan ka faaidaysta waxaa kamid a nimankan qofkii ilaahay dila unbay dilaya khudbadii jimcihii soo dhaaf khudba jimcadan akriya iyaanka hadlaaya shalay subaxii oo maalinta ugu dambaysa ay hadda hoteelka oo nabad looga soo kacayna salaada subax marka jamacada dushay iyaanka hadlaaya marka qofka adduunka ugu nacb yihiin waxaan malayna maanta sheekh nur baarudi aniga qofkayna ka nacbi jirto labadeena derbigii qolkii aan ku jirno derbigiisa nasoo istaagay haddana ma awoodin inayna dilaan leannahu dilka xagga ilaah ka yimaadaa marka waxaan leedahay marka qof kasta oo soomaali ah cabsida al-shabaab meel haska dhigto ha ogaata in ajirka loo dhamaanayso taasna waa sirsi runta aan soo qaatay oo aada u muhiim tan saddexaad haddii dadka qaarkood islahaayeen al-shabaab diin qalwacan hataa allah ka dhigay waa u qalwacanta diintooda diin saxa ma ahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaroo 6 jirka ah ama 5 jirka ah ee ay dileen iyo islaamta aniga qolkii aan deganaa gabar soomaaliyeed oo nin odaya oo casiiz ah soo ziyaaratay oo ay dileen wasiir madowga nono u timid carruur yar isiday ayay carruurtiina horteeda ku dileen odagii ay soo ziyaaratay iyo qiimaha badan horteeda ku dileen gabadhi waa soo carartay qolkiisa qolkii ku deganaa anugu aan deganaa aan ka baxay markaas ka hor daqiiqado ay soo gashay qolkii ku dhex dilay marka yani inaysan marka axmi lahayn oo aysan cidna dhaafayn oo maanta yani nabi maxamed sal slam xataa mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa muslimiinta ee wuxuu kula dardaarmay laa taqtuluu nisaa'an wala alatfaal walaa asxaabu asawaamic dadka kiniisadaha isaga cibaadaysanaayo dagaalka ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqayda ah iyo carruurta farax ka qaad weyne haddaba dadkan dhaafay waa gaal oo weliba wiilashooda kula dagaalamaayaan adiga oo gabdhaha haweenkaas raggooda ay ku dilaayaan ay gaala yihiin haddana la taaban maayo carruurta marka inaysan marka diinta sheeganay shaqa kulahayn taasaato daliil iyadana darsi weyn oo soomaali ka baran karta waay darsiga afaraad wuxuu yahay in aysan inay fulayaan yihiin maxaa yeelay nin markuu dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaaya oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban qalac waan fiirsanaynay meeshaan joognay xalay ilaa ay ka dhamaatay nagu dhamaatay warsheen ku dhamaatay waxbay tuurtuuraayeen mudooyinay tuurtuuraayeen marka ugu dambaysa runtii ayaga ayaa isdhamaynaya haddana marka dambe gacantiisa isku dilaa darsiga afaraad ama shanaad oo ka faaidna waxaa kamid a geesinimada dhalinyaradeeda soomaaliyada ciidamada soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aada active u ah xalay anigu waa fiirsanayay barnaamijka mar shabaab iyo annaga meesha soo joogna kaliya ciidankooda ka maqnaayeen gurmada ku yimideen mudda isla noolayn 2 saacadood ku dhadhow 2 saacadood kabacdi ay 4 geesi ay wasa dhaceen wasa daateen ciidamada markaasay iyagoo naxayn ayay intay galeen meesha oo weliba qaybtay ugu nuglaayeen oo qaybta dambe anigo aan ku jiray jalgal soo saarteen oo iyagu isku soo dul fuuleen oo si aada u tababaran waa fiirsanayen gudaha usoo galeen ayay dabxid hoteelka dusha ay hoos uga sameeyeen markaasay dad aada u muhiim ahay oo qiimo badan ay kasoo saaray oo markaa weli noolaayo nafta ay ku jirtay dad badanna waa dileen oo meydkii way arkeen qofkii dhimatay soo noqon mayso laakiin intii ay soo saari kareen ay soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo inaan haysano laakiin hoggaankii la raba inuu ciidankaas soomaalinimo inta la isu kaashado iyadoo far keliya leeyahay in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la raba inay caanaha iyo biyaha iyo timirta iyo ka daba qaadaan raashinka oy niyada u dhisaan haddii lagu xoojiyo dhalinyaradaas waa dhalinyaro geesiyaal ah oo aada u qiimo badan
وضل كان حريم أنت شاب الكعب أنتاس ودروستي أنت عن حري كفايدي أنا أرمي على الملا وحنون كبرنا وعليها كلها